sidee ayuu kiiskii gabadhani wiilkan Soomaaliga ah u galay cadeymaha lagu helay wiilkan Soomaaliga ah maxay yihiin geesinimada wiilkan uu sameeyay markii uu gabadhaasi dul tagay rajada u yeelaysa maxay tahay xagee ayuu ku dambeeyay ninkii Suudaaniga ahaa ee gabadhan Soomaaliyeed midida ku jarjaray macluumaad iyo waraysi dheer ayaanu idin haynaa oo aan ku lafagurayno kiiska gabadhan muuqaal laga duubay gabadhan habeenkii dulku dhacayay oo laga hayo iyo doon dalxiis oo ay saaran tahay oo xaflad korkeeda ka socotay barnaamijkeena maanta ayaynu kiiska gabadhan iyo waraysiga uu qaaday wariye Cabdixaafid Maxamuud Jaamac ayaynu ku lafaguri doonaa gabadhan oo ilaa hadda ehelkeedii aan lahayn meel ay jaan iyo cirib dhigeen talo qabiil ahaan ama gobol ahaan gabadhan xagee ayay ka soo jeedaa marxuumadda ee kiiskeedu gilgilay dalkaas Turkiga qodobadaas iyo qodobo kale oo dhan iyo waraysigan ayaynu barnaamijkeena maanta aynu ku qaadaynaa hayeeshee daawade hadda channelka ku cusub tahay subscribe saar asxaabtaada la wadaag ku soo dhawaada barnaamijka dilkii ugu foosho xumaa ee abid oo ka dhacay dalkaas Turkiga warar ka imaanaya wadankaas Turkiga ayaa sheegaya in nin Suudaaniisa uu dilay gabadh Soomaaliyeed wadankaasi ku noolayd ninkan ayaa ahaa saaxiibka ugu dhow ee gabadhan isagoo shirqoolay kadib markii ay aaday xaflad ka dhacaysay doon dusheeda dacdada ama qisada gabadhan xanuunka badan ayaan halkan idinku soo gudbin doonaa ninkan Suudaaniiska ayaa wacay gabadhan oo ahayd saaxiibtiis taasoo ku maqnayd meel xaflad ah isagoo isticmaalay GPS-ka Snapchat-keeda si uu ogaaday meesha runta ah ee ay joogto gabadha ayaa u sheegtay in ay soo socoto isagoo ogaa in ay sheegayso run oo ay tahay sax meesha ay u sheegtay ayna ka soo socoto wuxuuna u istaagay meel wada gabadhan ayaa ka hadhay gabadhii kale ee ay iskala yimaadeen xafladda iyadoo hore u soo raacday ninkan Suudaaniiska isla markaana geysay gurigii ay ka deganeed wadankaas Turkiga muddo markii ay wada joogeen ayuu gacan qaaday isagoo ugu dambeyn nafta dhaafiyay oo mindi ku jarjaray gabadhan Soomaaliyeed ninkan ayaa markii uu gabadhan nafta dhaafiyay wuxuu u cararay dhanka iyo airportka isagoo goosay tigidh degdeg ah si aan loo qaban isla markaana uu uga badbaado inuu galo xabsi muddo markii uu socday dhankaas iyo airportka ayuu wuxuu soo wacay wiil Soomaaliyeed oo ay saaxiib ahaayeen isla markaana isu ogaa inay labadan lamaana yihiin dad jacayl wadaaga ay yihiin kuwaasi oo uu ka warqabay isaga oo u sheegay in gabadhii ay telefoonka ku qaban weyday isla markaana uu ka codsanayo inuu si degdeg ah ugu tago gurigii ay ka deganeed magaalada oo uu soo fiiriyo waxa ku dhacay uuna aad uga walwalayo wiilkii Soomaaliga ah ayaa si degdeg ah u soo aaday gurigii gabadhu ay deganeed kaasoo uu ku ogaa in ay degan tahay muddo markii uu halkaasi u soo socday wuxuu soo gaaray gurigii ay deganeed gabadhu isagoo ay ka furi weyday gurigii isla markaana markii uu cabaar garaacayay ayuu gudaha u galay isagoo arkay in gabadhii ay sariirta dul jiifto oo aanay hadlayn oo ay tahay qof dhimatay nasiib darro wiilkan ayaa naxdintii gabadha ka taabtaatay dhabanada ama wajiga bal si uu hubiyo in ay nooshahay kale nasiib darro wuxuu ogaaday in gabadhan ay dhimatay isla markaana la dilay oo mindi lagu dilay wuxuu si degdeg ah u wacay booliiska muddo dhowr saac kadib waxa gurigii gaaray yimi booliiska wadankaas Turkiga kuwaas oo bilaabay baaritaan dheeraad booliiska ayaa la yimi qalabka sheega faraha iyo in lagu ogaado qofkii ugu dambeeyay ee gabadhani ama albaabkeeda taabtay nasiib darro waxa soo baxay faraha wiilkii uu soo wacay ninkii Suudaanka ahaa ee ku sugnaa airportka booliiska ayaa xabsiga dhigay wiilkii Soomaaliga ahaa isagoo ay xidheen muddo 17 maalmood muddo 17 maalmood kadib ayay soo daayeen lagu soo daayay damiin laguna amray in aan wadankaas Turkiga aanu ka bixin dhanka kale booliiska dalweynaha wadankaas Turkiga ayaa baaray gurigii ay deganeed gabadhu iyagoo ka helay waxyaabo badan sida dahab qaali ah iyo lacag aad u tiro badan nasiib darro gabadhan wax ehel ah ama qaraabo ah kuma aysan lahayn wadanka Turkiga
iyadoo aan barin asxaabteeda qaraabadeeda ku sugan daafaha adduunka. Gabadhan ayaa u sheegtay qabiilkeedu inuu yahay oo keliya Beeshadeer ee degta koonfurta Soomaaliya. Ugu dambeyn booliiska ayaa soo bandhigay sawirada gabadhan iyagoo ku faafiyay baraha bulshada ay isticmaalaan iyo weliba kuwa ay Soomaalidu isticmaasho. Lama oga halka ay ku dambeyn doonto arrinta gabadhan. Haddaba waraysi uu ka qaaday wariye Cabdixaafid Maxamuud Jaamac, wariye kale oo ku sugan dalka Turkiga oo lagu magacaabo Mustafa Sheno ayaa kiiska gabadhan bilow ilaa dhamaad la socday. Halka wiilkan lagu xiray sida kiiskan gabadhan uu wiilka Soomaaliga ah u guda galay ninkii Suudaaniga ah iyo xaalka dhan iyo kiiska gabadhan oo dhan. Waxa aad ugu warhaya kana waramaya Mustafa Sheno waxaana waraysi siiyay wariye Cabdixaafid Maxamuud Jaamac. Hadda waraysigii bal nala yar daawo. Waad yaabi doontaa sida wiilkaasi Soomaaliga loo shirqoolay. kulanti wanaagsan waxaan daawadayaal meel kastoo dunida ka joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka markhaatiga nool oo halkan aad ka daawataan toddobaad walba haddaayoo kale. barnaamijkan ayaa wuxuu daaran yahay gabar Soomaaliyeed oo Faadimo Cabdilaahi lagu magacaabo oo dalka Turkiga lagu dilay dhawaan. sidii loo dilay, loo helay meydkeeda, ciddii ka dambeysay ama ku eedaysan, iyo waxyaalihii markii gurigeedii booliisku ay tageen laga helay ayaanu eegi doonaa. waxaana barnaamijkan igala qayb qaadanaya wariye Mustafa Sheno oo ka tirsan Brit Somali TV dalka Turkigana ku sugan. waxaanu kaloo eegi doonaa wiil Soomaaliyeed oo markaas dabin loo dhigay oo ninkii dhibaatada geystay uu dabin u dhigay oo haatan booliisku ay soo daayeen inkastoo la diiday in uu ka baxo dalka Turkiga inta baaritaanku uu ka socdo. waxaanu idiin haynaa muuqaal gabadha laga duubay Allah u raxmade samir iimaan Allah ka siiyay Soomaalida oo dhan gaar ahaan qoyskeedii iyo heladeedii iyo qaraabadeedii iyo saaxiibadeedba. waxaadna arki doontaan muuqaalkaas qof asturan oo akhlaaq leh inuu ay ka muuqato ayaa muuqaalka ka muuqato. dib ayaan idinka tusi doonaa, idinla wadaagi doonaa. soo dhawaada meel kastoo dunida ka joogtaan. aan soo dhaweeyey Mustafa Sidiran. Mustafa aad baan kuu soo dhaweynaya adoo xilli dambe ku tahay. waa dhaway walaalkii Cabdixafiid. Mustafa marka hore adigu wariyaa tahay, wariguna waa xog raadis, waa xog aruuris, waa macluumaad inaad soo xuraabisid. marka hore jaaliyadu iyo adigu sidee u maqasheen dilka gabadhan Soomaaliyeed? soo dhow. horta arrintan Cabdixafiid oo walaalano dhow, arrintan waxa u dhacday muddo la jooga 20 cisho ka hor ay arrintan dhacday. gabadhan waxay ka qayb gashay xaflad lagu qabanayay magaalada Istanbul. xafladaas oo dhacaysay doon wiilkii gabar Soomaaliyeed oo isdoortay xaflad meher iyo gabadhan ka qayb gashay. waxayna ka mid ahayd gabdhihii meesha joogay. aniga laftigayga waxaan dadkii lagu casuumay xafladaas oo meesha joogay. waxaa dhacday gabadhani xafladdii markay dhammaatay inay ahayd dadkii xafladda ka soo noqday. gabadhan waxay timid magaalada xaafadda Faatix anaga aan deganahay, laakiin degaan ahaan iyadu waxay degan tahay xaafad lera Izanyort magaalada iyada. gabadhan waxaa qabay nin Suudaani ah oo ajnabi ah. ninka Suudaaniga wuxuu isku dayay Snapchat-keeda gabadha inuu la soo xiriiro oo location kuna waxay u sheegtay inay xaflad ku maqan tahay gabdha Soomaaliya, xafladaasna soo socoto haddana ay u soo socoto dhinaciisa. wuxuu ku xigay joogtaa, waxay tiri waan soo socdaa. isagana intaas uu sameeyay location-keedu daba socday. wuxuu ku hor yimid iyadoo la socoto gabdhihii xafladda ka yimid iyo badan oo Soomaaliya, dadka Soomaalida way isdhex galaan. markuu arkay ayuu ku qayliyay, way dareentay ninkan inuu xanaaqsan yahay. kulay dhaqan isku taqa dhowr jeer horena uu dilay sida aan warbixintu ku hayo. way israaceen, waxay tageen meel makhaayad oo la Soon Usmaanli meeshii fadhiisatay. uu ku booqay, uu ku qayliyay inuu dilo uu gacan u qaado isku dayay. milal Soomaaliya meesha joogay anagoo meesha taagan gabadha ma dili karto, gacan uma qaadi karto. markii arrintii dhacday wuxuu isku dayay maadaama Soomaalidii ka badan tahay inuu isdejiyo gabadhan sidoo ku kaxaysan lahaa fikirkeeda ka shaqeey soo kaligeed u helo. dhacdadaas liftigeeda markhaati cad waaye oo muuqaalka waxa laga helay makhaayadda CCTV-ga ay duubtaan laga helay. hadda xarooyinka ay booliisku urursadeen ka mid tahay. kadib gabadhii wuu kaxaystay, gurigiisu la tegey. ninkan already ticket online u sii jartay inuu waddan ka baxo. guriga waxa uu joogay laba eeyo yaryar oo eeyahan yararka maartay big damiska yararka ayaa guriga u joogay. labadii eey ayuu koow ka siiyey, iyadii uu dilay. intaa markuu dhameeyey guriga albaabkiisu xirtay, waa ka dhawa ka tegey, airport-ku toos u tegey. qof la hadlay ma jirto reaction-kaasoo dhan. diyaaraddii markuu fulo siidkiisii fariistay ayuu soo garaacay wiil Soomaaliyeed oo saaxiibo ahaayeen. wuxuu yidhi xaaskayga telefoonkayga ma qabanaysee, niyow gurigii tago
bal hadday joogto ii garaaco bal hay soo garaacdo soomaalidana waa naqaanaa dee waa iska degdeg badan dhalinyarada ninkii waa orday gurigii tagay ilaa fingriskii rabaa ninkaan meeshayna ka baxaane albaabkii fagsii halkaa mustafa u kaade daawadayaal albaabka markaad taabatid ama meel taabatid farahaaga iyo booliisku ka soo qaadaya hadhowto waxayna noqonaysaa caddayn lagu isticmaali karo inaad gurigaan timid adigu maadaama farahaagii lahayo saasuu mustafakooda ku soco albaabkii markuu tegey oo farihii la galay guduhu soo gudbay gabadhii u arkay dhinacyadu ka taabtay inay meyd tahay haddana farihiisiya waxaa laga helay gabadha wejigeedii ninka soomaaliga yarka uu fiicnaa uu aad u dadaalay telefoon u qabsaday iyo geesini uu sameeyey booliiskii waay gabadhaana u yimid waa la dilay ninkeedana soo wuxuu yidhi tag koolkiina uu hayaa telefoonka ninkeeduna soo wacay intaasoo daqiiqo kor telefoonka ninka uu xirtay booliisku way yimaadeen isagay ku tuureen horta waa xireen xabsigaa lagu tuuray waxay isku dayeen booliisku in airportka xiriir la sameeyo already diyaaradda ninka take off waay wuxuuna u dhoofay dalkiisa diyaaraddiisa waxay transit ku ahayd masar markay ka kacda haddana suudaan wiilkii waa la xiray muddo wuxuu xirnaa 17 cisho 3 maalmood ka hor la soo daayay markii wiilkii la soo daayay 3 maalmood ka hor waxaa lagu yiri waddanka kama bixi kartid inta kiiskan uu socdo gabadha ilaa hadda ehelkeeda lama hayo waa gartay mustaf daawadayaal muuqaalkan haatan aad daawanaysaan waa muuqaal meesha munaasabadda gabadha loogaga yeeray ayadii saaxiibadeed dad dhallinyaraa iska sheekaysanaya oo meel iska fadhiya inay yihiin baa muuqato wax dhibaato ah hadda meeshan ka muuqda ama ay sameynaya ma jirto waana gabadha ugu shishaysa dadkan oo dhan oo markaas xijaaban si akhlaaqan ay u fadhida ayaa ka muuqata meesha dhallinyaradu isugu timidna ay timid dhallinyaraduna inay isla cawiyaan waa dabeecadaha dhallinyarada ma muuqato sida dadkuna ay sheegayaan dadka yaqaanaan oo la hadallayna ay sheegayaan qof xumaan lagu yaqaani maahayn wahagaag mustaf ku soco arrinta kale ee meesha ku jirta waxa weeye gurigii markay booliiska tegeen guriga hanti baa lagu tegey oo isugu jirta dahab iyo lacag hantidii booliiska haya ilaa haddana qof ehelkeeda lama hayo 20 cisho markay meesha ku jirtay talaagadii maanta ayaa duugteedii noo soo dhamaatay istanbul lagu aasay iyadoo weliba jawiga aad u kululiyay dadka Soomaalida yimidna aad u yaraayeen laakiin janaasadii waa lagu tukaday gabadhina sidii lagu duugay waa gartay mustaf markaanu eegno booliisku dabcan gurigii bay yimaadeen waa la baaray fingerprinterkii ama farihii qofka dadka ayaa laga helay ninkii Soomaaliga waa kan la xiray la soo daayay la yiri dalka kama bixi kartid ninkan gabadha jilay qabina jiray oo Cabdullaahi Dayib Cabdirasaaq in lagu tilmaamo la sheegay in magaciisu uu yahay kuna eedaysan dilkeeda anagu Brit Somali TV dabcan ma xaqiijin karno goob joog lama ahayn ayadaha laamaha amniga ee hawshaas u taala maxaan asaga laga yaqaanaa maxaan ku ognahay shakhsi ahaan dhaqankiisa qofka uu ahaa inuu Suudaan ka yimid oo sheegtay maxaan kaloo ka ognahay intaan ognahay ninkan waxa hadda lagu tiriyaa oo maaragtay markaan dadka sii tixraacay ama sheekadiisii galay ninkan waa dadkan ka ganacsada daroogada iyo sida hadda aan warbixinta ku hayno warbixino soo gaaraya marka ninkan dhowr jeer horna gabadhan gacan buu u qaaday markastuu gacan u qaadana waxoogaa dhaqaale yar iyo waa taqaanin naagis qaba kulley laakiin markasta waxaa meesha ku jirta waxa la yidhaha dhaqan carabtu waxay leeyihin dhaqan gooni ah gabadha Soomaaliyeed ee ninka carabkaa guursadaa markuu guursado wuxuu haystaa isaga inuu yeesho gabadha ehelkeeda lama xiriir karto dadkeeda lama xiriir karto bulshada ma soo dhexgeli karto mana aha carabta kaliya ajnabiga badan gabdhaha Soomaalida ajnabiga intooda badan guursaday dhibaatadaas ay la kulmaan sida xaqiiqada طبعا waxa kaloo jira ninkan hadda wadanka uu ka cararay ma ka warqabnaa Interpol inay raadinayaan booliiska caalamiga inay raadinayaan ma ka warhaynaa dawladda Turkiga arrintaas Cabdixafiid waa runta arrintaas waxa loo gudbiyay hadda xiriirka sida tooska la sameeyay jaaliyadda group kamid la sameeyeen safiirka Soomaaliya u fadhiyay dalka Suudaan sawirkiisii baa loo diray warbixintiisii loo diray dawladda Turkiga ilaa Interpolki gaarsiisay ninkii ilaa hadda waa lagu raadjoogaa Suudaan buu baxsaday dabcan Suudaan buu baxsaday waa gartay daawada waxa daawanaysaa markhaatiga nool gabar Soomaaliyeed oo lagu jiray dalka Turkiga oo maanta la aasay ayaanu ka hadlaynaa waxa lagu magacaabi jiray marxuumada Allah u naxariiste Faadima Cabdillaahi mana aha gabadhii koowaad halkaanu ka timin dhawaanay Malaysia sidaas oo kale nin ajnabi ah markuu gabar Soomaaliyeed ku dilay kadib marka ay diiday isagoo oo doonayay markaas inuu markaas uu yiri waa ku jeclay gursiyo waxyaalo la mid ah
muuqaalkeeda halkan idin soo saari doonaa goornow mustaf waxaa jira jaaliyad soomaaliyeed baa ku nool dalka turkiga aad u fara badan waxaa jira muwaadin soomaaliyeed oo magaciisa yidhahda xaashi oo arrintan isku xil saaray ninkaanu muxuu qabtay muxuu sameeyey dadaal noocee ah ayuu sameeyey arrintan muxuu isku xil saaray gabadhaas si loo aasilaa walaalkayo horta jaaliyadaha dalkan turkiga jooga soomaalida horta jaaliyad guud oo laga wada midaysan yahay ma jirto laakiin jaaliyadda keliya is dhihi karo shaqo fiican ay qabataa ugu aktifsan tahay waa ninkan xaashi iyo gruubkan dhalinyarada waddankan weliba nin waddanka weliba wax ku bartay wuxuu isku dayey inuu booliiska la xiriiro wuxuu isku dayey inuu gabadha ehelkeedii raadiyo wuxuu isku dayey inuu la xiriiro safaaraddii suudaan soomaaliya oo ninka arrintiisa loo gudbiyo ilaa maanta oo duugtii aan isla joognay ilaa duugteedii kor taagnaa waay masaf duugteedii oo duug joogay baa tiri ku soco ilaa duugteedii kor taagnaa arrintiina sidaa ku soo dhammaatay afkiisana uu isagu iiga qiray gabadhan hanti dahab iyo lacag intaba inay booliiska hayaan ilaa haddana ehelkeedii la sugayo weliba way adkaatay in duugteeda sidii lagu duulaa dowladda turkigu arrintaas aad bay uga laalaabato waxay tiri hadda maaragtay in la duugo iyo hawshan iyo waqti dheer bay u baahantay inaan qaadano marka 20 cisho qof ku jiray talaagad uu isbedelay waad dareemi kartaa waayahay wax xiriira oo reerkeedii oo la soo sameeyeen ma jirto haba yaraatee jaaliyadda iyo dadka soomaaliyeed actifeka xaashi uu ka mid yahay ehelkeedii qaraabadeedii wax warama laga hayay niyow ilaa hadda lagama hayo gabadhan sida aan warbixinta ku hayo waxay ahayd gabdhihii dalalka carabta ku soo koray especially dhinaca sacuudiga marka ehelkeeda waxaa laga sheegay dhinacaasi koonfur galbeed salaam ay ka soo jeedo ma jeclayn inaan meeshan garay laakiin dantaa khasbayso marka niyow ilaa hadda waa la sugaya laakiin ilaa hadda wax xiriir oo contactiyo la hayaa ma jirto waa gartay maxaad kula dardaarmaysaa gabdhaha soomaaliyeed ee yaryar ee loo soo diray waxbarashada ee dalka qalaada aysan afgaranayn imaanaya laga yaabo mararka qaarkood dadaysan hubin inuu xiriir dhex maro guur dhex maro markaasna dhibaatooyinkan oo kale ay dhacaan muhiimad intee leeg bay leedahay in dadku ay iska warqabaan gaar ahaan gabdhaha laga warqabo soo dhowo cabdixafiid horta waddankan 5 sanadood baan joogaa mushkiladaha ugu badan waxa weeye hooyooyinkeena soomaaliyeed waxay soo dirayaan gabdhihii iyagoo waddankii jooga oo waxbarashadii ama waxbarasho ku jira ama ay waddanka waxbarasho u soo dirayaan qaarkood tahriib bay u imanayaan dhibaataa meesha ka jirto gabdhaha soomaaliyeed keligood maaha xataa wiilasha waddankan wuxuu leeyahay system uga khaas ah meel waddan markaad timaado maaha wixii aynu muqdisho la joognay iyo waddankeen markaan la joognay xorka ayn maaha waddankan markaad timaado wax badan waa inaad ka xisaabtataa especially gabdhaha guurka markasta wuxuu ku fiican yahay dad adiga kula sinji ah soomaaliduna isguursato taas ugu sharo badanta aad iyo aad waa maqlaysaan dardaaranka wariyaha odayga waa maqlaysaan guurka soomaaliga ayuu ku fiican yahay ehelkiisa iyo qaraabadiisa iyo awowgiisa iyo meelaad u raacda taqaana adigu wadaadka yarka carabka ama cadaanka meesha u raaci lahayd iyo cidda uga dacwoon lahayd marka dabcan jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool turki aad bay cabsi iyo walwal usoo foodsaareen arrintan markay dhacday ma jirtaa wax jaaliyaddu ay kaga tashanaysa safaaraddu barnaamijyo ay wado oo dhalinyarada lagu wacyigelinaya ma jirtaa mise waxa weeye nin walboo naftaa nebi oo ummadda wax wacyigelina waddankan ma jiraa nin kastoo jaantaan rogan waa hagaag wariye mustafa aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa 100% xilli dambe adoo ay kuu tahay janaase ka yimid maanta inaad bulshada soomaaliya maskaxaada u shiidaysay daawadayaal waa barnaamijka markhaatiga noola brit somali t v wariye mustafa sheena ayaanu ku wareysanayna xogool oo ahaa gabadhan soomaaliyeed la dilay sida loo dilay cidda dilkeeda ku eedaysan waxaase la yaab leh in ninkii soomaaliga ahaa ee khabardaarka ahaa uu ninkaas isku dayey markaas inuu asaga uu kaga badbaado ficilka uu ku eedaysan yahay ama uu geystay oo sida hadalka loo dhigay muuqaalkan kii ka horreeyanu ka duubna gabar soomaaliyeed aad u da'yar oo aad u qurux badan sida tan oo kale oo markaa la dilay iyadoo markaas gacan ka gardaran ay dishay sida ciidamada amnigu ay noo sheegeen iyo mas-uuliyiinta soomaaliyeed muuqaalkaas waa